السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب السود وهذا مال بودا فادون لك جوكتان channel كداون سوا نونو أكاديمي. صاحب المقعي هو عبد نونو حسين channel كان هو نونو أكاديمي. كسودو صاحب الهديات كمتها أصحابتي مالمان وصو بيرتي channel كان سبسكرايب نصرتي هديات كمتها دتكي هورين ولا جوين آدي آدم وعزمتي آدي آدم قوة إني صاحب channel وحنا كسو قد بنا وحياة بدن waxaana kamid ah barashada muuqaal sameynta waxa kamid ah barashada website sameynta waxa kamid ah saaxiibayaal barashada AI-ga ama artificial intelligence-ga kursooyin goos ah oo aynu soo gudbino mararka qaar wax walba oo teknolojiyada ku saabsan ee channel-keena ku baran doonta marka insha Allah waxa rajeynaa channel-kan inaad ku qasaarin fadlan subscribe taabo gambalelkana furo si aad u noqoto qofka koowaad ee soo dhacaan muuqaalada aan simaan lahaa ama soo gudbino inta kadib saaxiibayaal maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay saddex qaybood oo aan idin soo xulay oo isla leeyahay uma baahno hadda kadib qofka inuu ku baaro internet ama ka baaro how to make money online sida internetka lacag loogu sameeyo uma baahan doonti saddexdan qayb ee aan ku sheegay saaxiibayaal saddexdaba qayb kamid ah aniga soo tijaabiyay marka waxaan rajeynayaa anigoo ii shaqeysay adigan inay ku shaqeyso ayaan rajeynayaa insha Allah taala qaybta ugu dambaysa saddexda qaybood oo qaybta ugu muhiimsan aan isla leeyahay waxa way ka wada faa'iideysan karaan ama way awoodaan inay ka faa'iideystaan ama si fiican ugu dhiirigelin marka ilaa dhamaadkana la joog si waxa way xogtaas aan aad u ogaat insha Allah qaybta koowaad saaxiibayaal waxa loo yaqaanaa blogging wax inaad isweydiinaysaa macquul ah oo isleedahay maxay dadka maalin kasta blogging ugu hadlaan maxay soo kordhinaysaa in laga hadlo maxay faa'iido leedahay blogging saaxiibayaal waa xirfad aan isleeyahay qofka uma baahno inuu internet aqoon fiican u leeyahay uma baahno inuu xog badan ka hayo uma baahno inuu digital yahay uma baahno waxyaabo fara badan bay blogging kaga duwan tahay waxyaabahan kale ee aan ka hadlayo mis aan ka soo hadlay blogging saaxiibayaal si aad blogger u noqoto waxaad u baahan tahay kaliya inaad laptop haysato ama mobile aad haysato haddii aad labada haysato xitaa haddii aad ku xuntahay ama aadan ahayn dadka wax qora waxa lagu sameeyay ChatGPT waxa loo yaqaan oo qoraalkiiba ayada ku diyaarinayso marka saaxiibayaal blogging waa inaad samaysataa bloggingka si aad u samaysato waa inaad Gmail leedahay Gmailkii markaad leedahay bloggingka username iyo password baad ka samaysanaysaa kadibna saaxiibayaal waxaad samaynaysaa waxaad soo gudbinaysaa 30 mowduuc marka mowduuca aragtid haddii aad business baad ka hadli kartaa haddii aad caafimaad baad ka hadli kartaa haddii aad technology baad ka hadli kartaa haddii kale financial baad ka hadli kartaa waxyaabo fara badan oo laga hadla ayaa jira marka mowduuc ayaad dooranaysaa mowduuc markaad dooratid 30 article ama ilaa iyo 30 mowduuc ama 30 article aan ku dhaho ayaad ka sameynaysaa marka bloggingkaaga ayaad ku daabacaysaa 30ka article aad bloggingkaaga ku daabacday article kasta saaxiibayaal waa inuusan ka yaraanin wax loo yaqaano 1000 line ama 1000 sadar haddii 1000 sadar uu ka yahay way adag tahay inaad waxa way bloggingkaas lacag aad ka samayso marka 1000 sadar ka badi qoraalada aad qorayso sidoo kale 30 article meesha ku diyaarso labada shuruud marka buuxiso saaxiibayaal ee 1000 sadarna aad qorto 30 mowduucna aad diyaarsato ilaa 2 bil ilaa 3 bil bay kugu qaadanaysaa kadib waxaad codsanaysaa AdSense waxa loo yaqaan meesha YouTube-ka uu lacag ku bixiyo sidoo kale blogger-kana lacagta lagu siiyo marka YouTube-ka iyo blogger-ka labada waxa iska leh Google maadaama Google-ka leedahay marka Google-ka payment meter-ka qaybta ay ku sameysay wax loo yaqaan AdSense marka haddii aad tahay qof YouTube hore u lahaa uma baahnid marka in AdSense samaysto oo AdSense-ga lacagta ku qaadanaysa ee YouTube-ka ayaad ku xiran kartaa haddii aad tahay qof cusubna macnaha labadaba aan lahayn waa qof saaxiibka oo dibadda jiro adresskiisa ayaad isticmaali kartaa kadibna qaabkaas ayaad u codsanaysaa waana fududahay in lagu soo aqbalo maadaama shuruudii aan ku sheegay aad soo buuxisay marka blogging saaxiibayaal waa qayb aad iyo aad muhiim u ah waana qayb zero experience ku xiran wax experience inaad leedahay uma baahno si aad lacag ugu samayso marka saaxiibayaal waa codsi qaybtaas bloggingka xooga saar waxaan rajeynayaa maanta inaad bilowdo haddaad Gmail leedahay inaad user ka samaysato kadibna waxa way aad insha Allah taala intaan ku sheegay aad samayso 30 mowduucna aad ku qortid mowduuc kastana uusan ka yaraanin 1000 sadar insha Allah marka inta markaa samayso lacagtaada in baad iska goranaysaa WhatsApp-ka ku share garay sidoo kale Facebook-ka ku share garay TikTok-ka dalada ku share garay kadibna dadka hadii maalinka 30 qof 20 qof ku soo booqto booqashadaas ayaa lagu xisaabiyaa marka adigana saas ayaa lacag ku helaysaa marka waa rajeynaa qaybta faantay qaybta laba saaxiibayaal in adiga aad kugu dhiirigelinayo waxa loo yaqaan affiliate marketing waxa la yiraahdaa saaxiib in product meel lagu iibinayo aad productiga linkigiisa aad soo qaadid kadibna aad WhatsApp kaaga dhigtid ama Facebook kaaga dhigtid ama YouTube description kaaga dhigtid marka uu qof iibsadana alaabtaas aad adiga commission ku yeelatid tusaale waxaad ka hadlaysaa mowduuc aan tusaale u soo qaato how to reduce weight ama sida weight-ka loo dhimo ayaad ka hadlaysaa marka Alibaba ayaad tagaysaa alaabtii weight-ka lagu dhimayay ama productiga la isticmaalay aad soo qaadaysaa kadibna website-ka ayaad dhigaysaa linkiga waxaad leedahay marka linkiga la soo akhristo alaabtan xaggan ayaad ka iibsan kartaa ama leedahay linkiga meeshaad ku share gareynaysaa marka inta aad sameeyay saaxiibayaal qofka walbo iibsado linkigaas adiga waxaad ku leedahay commission
bal imagine maanta haddii 3 qof 4 qof 5 qof 6 qof ka iibsato oo meel $20 kugu jirto already saas lacag $600 kor u dhaafayso ayaad ku haysataa. Marka waa meel aad iyo aad u fudud oo lacag laga sameeyo. Waxaan is dhihin Soomaalida wax ma iibsato. Soomaalida qaar dibadaha joogo, qaarka Soomaaliya joogo, Ethiopia, Kenya kuwa joogo. Inta ugu badan internet ayaa hadda wax laga iibsadaa. Marka adigu waxaad u baahan tahay marka inaad xirfadaada dhisto oo aan istiraatiijiyada hadda aan kuu soo sheegay aan martid. Intaa kadibna aad Ilaahay tala saaratid wax walba oo kuu fududaanay. Sida aad moodayso maaha wax walba oo internetka ku jira sida aad moodayso way ka fudud yihiin. Kaliya waxay u baahan tahay ku dhac oo ah inaad wixii marka hore adiga aad bilowdo. Marka saaxiib qaybtaas labaad oo affiliate marketing insha Allah waa ku rajaynaa inaad maanta wixii kadib aydan aad bilaabi doonto. qaybta ugu muhiimsan saaxiib yaal in ka hadlayo waa meesha aad hadda iga daawanayso. YouTube-ka muuqaalo badan baan ka sameeyay anigoo ku dhahay YouTube samayso. qaarkiin ay samaystaan baa macquul ah, qaarkiin adinkeena kamid ah inaad samaysan baa macquul. From the day ama from the moment aad dhalatay ilaa iyo maanta in adiga kaliya wax daawato cid ku qadartay ma leh. waa in adigana markaaga lagu daawadaa, waa in xogta aad haysay laga dhigeystaa, waa in wixii aad sheegi lahayd aad dadka la wadaagtaa. waxyaabo fara badan oo xog baad haysaa adigana. marka xogtaada waa inaad dadka la wadaagtaa. YouTube-ka furo saaxiib yaal. YouTube waa meel aad iyo aad lacag loogu sameyn karo. waxaad u baahan tahay 15 muuqaal 20 muuqaal si lagu barto. intaas ayaad u baahan tahay. sidoo kale saaxiib yaal haddii aad isleedahay maxaan sheegaya oo kaamiradu waa ka cabsanaya haddaad isleedahayna YouTube-kiigan 90 muuqaal in ka badan baa ku jirta. waxaan u malaynayaa afar waa marka afraad ee YouTube-kiiga kasoo muuqanayo. dhowr 86 muuqaal aad arkayso waxa waaye wajigayga kama muuqdo. waa marka afraad ee hadda YouTube-kiiga aan toos aan ugu soo muuqdo. marka YouTube-kiiga waxaan dhihi karaa waa faceless channel. waa meel aan anigu badanaa aan kasoo muuqan. markaan xog idin sheegaya maaha markaan cashiraanta iyo waxyaabahan idin sharxayo aniga inta badan meeshan kama soo muuqdo. marka haddii aad sidoo kale waxaad samaysan kartaa podcast oo wax editing kaaga baahneen. haddii qof saaxiibka gabaya uu yahay asaga baad xogta gabayga kasoo qaadi kartaa. haddii aad adiga gabaya tahay xogta gabayga adiga iska soo qaadi karo. waxyaabo badan baa saaxiib yaal meeshan aad ku share gareyn kartaa. marka adigana waan ku rajaynayaa YouTube-ka 2024 adigoo YouTube leh oo sida maanta aan ku daawanay meeshan aan ku kulmi doono. marka inta la dhamaadka dhan la soo gaartay intaas ayaan jeclaysan maanta inaan kula wadaago. fadlan channelka subscribe saar sidoo kale muuqaalka noo la garay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.